هي بسم الله تاريخ مركي كوبي صدن كبيش لبي تبنا لو كن سجالي تبن waxaa maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay tacawid ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kala ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikir labo marxuum sareeye guuto bool إسماعيل أحمد إسماعيل مكيالو تاريخ المركز لسدي لاتنكي بشي تمناد 2016 صدح تاريخ تضبية لاتنكي بشي أفراد 2017 مرحوم أكي سرية قوتو محمود حاج علي أفر تاريخ المركز أهيد أفر لاتنكي بشي سقالة 2017 مرحوم أكي سرية قوتو حوغة عبد الله محمد شيخ حسن قروره يا أسكري إلى لوءها لغو مقعابي مرحوم اكس دبل حوجة محمد بلا قعمي oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 2018 marxuum Cabdul Qaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xiriirlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay raacfaan taariikhdu markay 31kii bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedeysanayaasha 19kii bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa وبالله التوفيق